السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان كسو دوادا مقال عصب و pilot shooter. qofkani kasini pilot shooter waxa ayaad samaysaa like share subscribe sar channel kan sidaad u baratid iyo yahay pilot shooter. maanta waxa ayaan bilaabi rabnaa new series ama musalsal cusub oo ku saabsan baaritaanka diyaaradaha ama aircraft investigation. waxa ayaana ka hadli doonaa shilalka diyaaradaha, afduubka diyaaradaha, asbaabta keento iyo sida aan uga hortagi karno. waxa ayaan ka bilaabi doonaa shilalka diyaaradaha, asbaabta keento. sababta ugu weyn oo shilalka diyaaradaha u dhacaan waxa ayaa u human error ama qaladaadka bini'aadanka, sida pilot error ama qaladaadka duuliyaha, mechanical error ama qaladaadka injineerka, weather cimilaha ama hawadu isbedelayso, sidoo kaleeto ATC ama towerka dadka ka shaqeynayo oo instruction qalad dhiibo, ground handling kuwa dhulka ka shaqeynayo oo diyaaradda ka bixinayo ama riixayo way ka naftirkooda qaladaad ayaa ka imaado. marka su'aasha waxa ay noqonaysaa sidee ayaan uga hortagi karnaa shilalkaas? jawaabta waa proper training ama tababar oo si saxsan loo bixiyo qaybta ku saabsan aviationka. dhamaan duuliyo, engineer ku dhulka shaqeeyo dhamaantooda tababar oo toosan inaa la siiyo oo saxsan. kaleeto waa don't get slow. aviationka slow loogama baahno ama qof oo slow ama qof oo tartiib u soconayo loogama baahno. tan saddexaad, don't fly via far in low visibility ama haduulin diyaarad loogu talgalay inay cimilo nadiif ku duusho, hawo xun ha ku duulinin. haddii hawadaas xun tahay ha duulin. tan afaraad, haddaad ka maqashid diyaaradaada codad aan horay u maqlin ama codad shaki kaa keeno, waxa ayaad isku daydaa inaad diyaaradaas dhulka geysid ama airportka kugu dhow inaad ku dejisid. tan shanaad waa good maintenance ama diyaaradii oo si fiican loo hagaajiyo waxa ayay sameyn kartaa ama ayay faa'iido u tahay to save lives. tan lixaad oo ugu dambeyso waa don't pressure yourself to fly. ha is pressure gareenin ama ha isku dedejinin inaad duusho adiga oo aan diyaar ahayn. sidoo kale waxa ayaa soo gaarnay muuqaalkeena qaybtiisa ugu dambeysay. haddaad rabto in aad la socoto ama daawato muuqaalaha cusub ama musalsalka cusub oo noo bilaabanayo, make sure you like share subscribe to this channel. ila soco. Peace out.